بسم الله الرحمن الرحيم waxaan wanaagsan khiyaarta hawada daawatay ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay maqal wareedkan socodsiga weyn haddii aad wax ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan galmudug oo koonfurta gaalkacyo ku soo bandhigtay cudud ciidan sheegtayna inay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay geenayaan koonfurta gaalkacyo kadib markii hogaamiyaha Puntland Abdullahi Saciid Dani oo sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu si gabi ahaanba koonfurta gaalkacyo u soo iimaan karin halkaas markay baasha gaartay walow galmudug oo isbedel ku socdo qoorqoor hoos loo dhigay awood galmudug oo koonfurta gaalkacyo ku soo bandhigtay cudud ciidan sheegtayna inay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay geenayaan koonfurta gaalkacyo kadib markii hogaamiyaha Puntland Abdullahi Saciid Dani oo sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu si gabi ahaanba koonfurta gaalkacyo u soo iimaan karin halkaas markay baasha gaartay walow galmudug oo isbedel ku socdo qoorqoor hoos loo dhigay awoodiisii alla awood leh oo la doonayo liimaan shuluq in xilka la saaro ayaa isla markii ay hawada soo martay arintaasi waxa isla markiiba ka jawaabay ninkan imika liimaan shuluq oo galmudug loo wada iyo gudoomiyaha Nisamaha Salaad kuwaas oo ciidamadii gaalkacyo ku sugnaa iyo kuwii galmudug ba intay gabi ahaanba isku geeyeen sheegay iyo saraakiil kale oo dawladda federaalka ka tirsan in madaxweynaha Jamhuuriyadda koonfurta gaalkacyo ay geenayaan iyaguna ay ku filan yihiin amaankiisa